kulanti wacan idilkiinba daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan sida uu ogyahay arday kasta oo ka soo baxay iskuul dhexe amaba sare shirqoolkii lagu khaarijiyay Archduke Franz Ferdinand ee Sarajevo 28 Juun 1914 waxay ahayd dabayshiisii urisay xaraaradii dagaalkii koobaad ee dunida ilaa dherigu furka tuuray oo ay gaadhay marxaladu meel aan la mahadin. magacaygu waa Siciid Maasim. qodobkana waxaynu ku soo qaadanaynaa sidii ay u dhacday toogashadii bedeshay dunida iyo cawaaqibkii ka dhashay. ku soo dhawaada channelkeena Adduun Qarsoon. wahubaal daawada inaad hore u maqashay amaba u daawatay barnaamijyo ka hadlaya dagaalkii koobaad ee dunida iyo asbaabihii keenay intaba. waxaase qodobkani aynu si gaara isu dultaagi doonaa toogashadii soo dedejisay in xabaddu ay dhuunta ka baxdo oo birta la iska aslo. marka hore aynu qeexno shakhsiyaddii Franz Ferdinand, dhaxal sugihii waddanka Austria-Hungary. waxa uu dhashay 18 Disembar sanadkii 1863. waxaanu ahaa curadkii boqor Karl Ludwig ee Austria, waqtigaasi oo loo yaqaanay Austria-Hungary. isagoo aad u daayar ayaa lagu sheegaa inuu noqday maalqabeen ku fadhiya mulkiyad aan xisaab lahayn. dhimashadii adeerkii boqor Crown Prince Rudolf oo qudhays ka jaray 30 January 1889, isla mar ahaantaasina ahaa wiilka kaliya ee uu dhalay adeerkii Emperador Franz Joseph, ayaa waxay fursad dahabiya siisay Franz Ferdinand oo isla markiiba lagu dhawaaqay inuu yahay dhaxal sugaha kaliya ee aabihii uga dambayn doona Emperadoriyadii Austria-Hungary. haddii aad akhrido buugaagta qaar, shakhsiyaddiisa waxaa lagu tilmaamaa shakhsi dadkiisu ay jeclaayeen, inkastoo ay jiraan dad kale oo ka soo horjeeday. wuxuuna ahaa nin ku dhaqma siyaasad deggan oo ka soo horjeeda in wax dagaal ah lala galo Ruushka iyo xulafadiisa, balse waxa uu ahaa dhagarqabe bala ku qabay ugaarsiga xayawaanaadka. waxaa la diiwaan geliyey inuu ugaarsaday oo nafta dhaafiyey in ka badan 250,000 oo noole markii da'diisu ay ahayd 50 sannadood. haddii aynu halkaasi ku dhaafno taariikhdiisa oo kooban, hadda aynu la kulanno Garfilo Princip, wiilka 19 jirka ahaa ee lagu tilmaamay in dunidu ay fartiisa eeday una bareeray dilkii Franz Ferdinand, dhaxal sugihii Austria-Hungary. Princip waxa uu ahaa mid ka mid a dhalinyaro lagu soo carbiyey dalka Serbiya oo u dhashay waddanka Bosnia si ay markaasi u malgaan Archduke Franz Ferdinand kadib markii uu ku dhawaaqay safarkiisii uu ku tegayey dalka Bosnia oo waqtigaasi hoos yimanaya Austria-Hungary bishii Juun 1914 oo ahaa safarkiisii ugu dambeeyey ee adduunyo. dhammaadkii bishii May ayaa Princip iyo kooxdiisa oo ku hubaysan bambagacmeedyo iyo baastoolado ay ku soo kala bixiyeen safar qaatay 8 maalmood magaalada Belgrade ee Serbiya ilaa iyo Sarajevo oo ah caasimadda Bosnia si ay markaasi u khaarijiyaan dhaxal sugaha boqorka Austria-Hungary. waxay ahayd barqo hore oo magaaladu ay sugaysay soo dhoweynta Archduke Franz Ferdinand, iyadoo dhinaca kalena ay barbar socotay diyaarinta qorshaha dilka boqorka. mid ka mid a biriishada uu boqorku soo maraya waxaa durbadiiba lagu diyaariyey nin ku hubaysan bambagacmeed kaasi oo la beegsaday gaadhigii uu saarnaa dhaxal suguhu, waxaana ku dhaawacmay 2 askari kadib markii bartilmaameedkaasi uu qalloocday. Franz Ferdinand waxa uu iska sii watay booqashadiisii, wuxuuna la kulmay xubnihii xukuumadda guriga dowladda hoose ee ku yaala Sarajevo. waxa uu qorshaysnaa shirar iyo khudbado uu u jeediyey shacabka, hase yeeshee waxaa arrintaasi ay dhabaqday kadib markii darawalkii uu ku amray in uu u kaxeeyo dhanka cisbitaalka si uu markaasi u soo eego xaaladda askartii ku dhaawacantay bambada. nasiib darada ayaa waxay ahayd in darawalkii uu gaadhigii ku hakiyey meel la siman Garfilo Princip, waxaana si halhaleel ah uu la soo baxay baaskooladiisii. isaga oo ka faa'iidaysanaya ilbiriqsi kasta ayaa uu 2 xabadood kala beegsaday masaafo aan ka durugsanayn. ilbiriqsiyo yar kadibna waxaa nafbaxday Sofia oo ahayd xaaskii Franz Ferdinand, halka isagana neeftii ugu dambaysay uu qaatay isagoo ku dhawaaqaya magaca xaaskiisa kana codsanaya in ay u hadho ubadka ay dhaleen. maalintii xigtay waxaa Bosnia jeelka loo taxaabay in ka badan 5,000 oo Serbiyaan ah, kuwaasi oo markii uu dagaalku bilaabmay in badan oo ka mid ah xadhig qoorta loogu xidhay kadibna la daldalay. dhacdadani ayaa taariikhyahanadu waxay sheegeen in Austria-Hungary ay u adeegsatay fursad ay si kama dambaysa ugu burburiso Serbiya. bishii Julaay 5 ilaa 6 boqorka iyo ra'iisul wasaaraha Germany ayaa u xaqiijiyey safiirka Austria ee Berlin in ay ku taageerayaan haddii ay Serbiya ku qaadaan dagaal kama dambaysa, iyagoo markaasi rajaynayay guul military oo degdeg ah.
xisaab khaldan ayay isku geysteen bishii Juulaay 23 waqtiga kama dambaysta ah ayaa loo qabtay Serbia 2 maalmood kadibna inkastoo Serbia ay aqbashay wixii laga dalbaday oo dhan marka laga reebo 2 qodob oo u ogolaanayay in maamulka Austria-Hungary ay si toos ah u soo farageliyaan arrimaha gudaha Serbia ma noqon mid u cuntantay boqorkii Austria-Hungary waxaanay afuufeen siidhigii colaadda bishii Juulaay 28 taasi oo horseeday dhacdooyin istaba joog ah oo dhaliyay in dagaalku uu dalal badan ku baaho 3 maalmood kadibna Russia ayaa si toos ah dagaalka ugu soo biirtay iyadoo ka jawaabaysa tallaabadii Germany dhinaca kale dalka Ingiriiska waxa cidhiidhi galay suuqyadii maaliyadda waxaana la hakiyay suuqii isdhaafsiga saamiyada markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1773 dagaalkaasi waxa ka qayb qaatay 28 dawladood 93% dadka ku nool dunida ayaa si toos ah iyo si dadbanba uga qayb qaatay dagaalka isagoo dabkiisuna uu gaaray qaaradaha Yurub, Afrika ilaa iyo Asia wuxuu ahaa dagaal aan waxba la isku reeban oo la iska weeraray dhanka dhulka, cirka iyo badda taariikhda inta la og yahay waxa la isku adeegsaday hubkii ugu casrisanaa waqtigaasi iyadoo xataa la isku isticmaalay gaas sumaysan oo la isku buufiyay sida cayayaanka dhufaysyada cadowga laga galo ayaa daan walba u fiday waxaana dhacday masiibo aan marnaba caqliga aadamuhu ku fikirin intaasi ayaa uu inoogu egyahay qodobkeena aynu isku dul taagnay rasaastii ugu horeysay ee dagaalkii koobaad ee dunida subscribe share iyo like tabaha ilaawin haddii aad ka heshay si aad ula socoto muuqaalada cusub